السلام عليكم. برنامجka hableena haldoorka ah waa mid aan ugu kuurgalayo in aan idin la wadaago oo aan idin hor keeno inaan gabadh kasta oo buuxisay shuruuda aan u dejiyay barnaamijkan oo kala ah. 1. in ay inantaasi leedahay barnaamijyo iyo dadaallo ay bulshadan dhibaatooyinka haysta xalkooda qayb kaga tahay. 2. in barnaamijyadeeda iyo dadaaladeedu jaadka ay doonaan ha noqdaane si toos ah ay uga muuqato ilaalinta diinteena suuban iyo dhowridda dhaqankeena dheemanka ah. 3. in dadaalkaasi aanu ahayn shaqadeeda mushaharku ka soo galo ee maalinlaha ah. ujeedka aan ka leeyahay barnaamijkan iyo diyaarintiisu waxa weeye 1. innaga oo ah dadkii aase oo aan ka wado in aynaan qofka innaga ina badbaadinaya garab istaagin ee aynu dayacno heer uu ka daalayo oo faraha ka qaadayo shaqadii uu gacanta inoogu hayay. 2. waxa aynu ka dhibiil qaadanaa xadiiskii rasuulkeena sharafta badan ee ahaa qofka wanaag idiin sameeya abaal mariya haddii aad weydaan wax aad ku abaal marisaanna u duceeya. Sahih al-Bukhari. anna waxa aan abaalmarin uga dhigay in aan dadkooda ay u dadaalayaan horkeeno. 3. waxa jira buuq lagu furay hablaheena oo la leeyahay aragga iska dhiciya waa la idin liidaya oo waxba in aydan ahayn ayaa la idin muujinaya. marka waxa aan barnaamijkan uga jeedaa in aan muujiyo in aynan hablaheena liidayn ee ay madaxa inoo saaran yihiin hablo badan oo ay ku daydaanna ay buuxaan. qofkii koobaad ee aynu ku soo qaadanay barnaamijka waxa uu ahaa Dr. Sibaaq Buubaal. qofka labaad ee shuruudaas buuxiyay una gartay in aan ku soo qaato barnaamijkeenani waa Dr. Sahra Maxamed Cabdi. rabbi ha xifdiye. Dr. Sahra waxa ay wax ku baratay wadankeeda hooyo jeer ay ka diyaarisay cilmiga caafimaadka sanadkii 2019 ayaa ay ka baxday jaamacadda UNESCO University of Somalia oo sidii aan tilmaamay ay ka baxday fiilka cilmiga caafimaadka. Dr. Sahra waxa ay leedahay barnaamijyo fagaareed ah oo ay ku toosiso fahanada tasoobay ee aan marin tubti toosnay. waxa ay dhalinyarada ka wacyigelisaa wax kasta oo keenaya in uu jiheeyuhu ka lumo oo ay marin habaabaan. waxa ay kala hadashaa qodobada madhaafaanka ah ee ay u baahan yihiin kuwaas oo ay ka mid yihiin arrimaha qoyska, haasaawaha iyo hawraarta ereyga, hilinka saarista habowga ku dhexeehaabay dhalanteedka jacaylka dhabta ah iyo dhalanteedka gacan kurimiska ah. sidoo kale waxyaabaha ay ka hadasho waxaa ka mid ah mawduucyada iyaguna sida dheer u taabanaya mustaqbalka dhalinyarada sida aqoonta, akhriska iyo wixii la mid ah. waxa ay leedahay kanaalkan YouTube iyo boggan Facebook ee halkan idinka muuqda oo magaceedu ku qoran yahay. waxay ku soo gudbisaa muuqaallo dheeman ah oo ku saabsan qodobadii aynu kor ku soo xusnay. haddaba Dr. Sahra dadaaladeeda u badan fagaara ka hadalladu waxa ay kaga duwan yihiin dadaalada dhigeedu wadaan waxa ka mid ah 1. in ay yihiin qaar ay ku duugan tahay aqoon iyo soo diyaarin cajiib ah. 2. in ay dhammaan waxa ay sheegayso ku salayso diinteena islaamka ee quruxda badan iyada oo aad si toos ah uga dheehanayso diyaarinta heerka sarreysa iyo akhrinta baaxadda weyn ee ay samaysay. 3. in ay leedahay dareen xooggan oo ku aadan diinteeda iyo dadkeeda. Dr. Sahra waxa ay leedahay inta aan ka ogahay dhigana la dhaho akhriska iyo akhristaha kaas oo ay ugu tala gashay in ay wax kaga bedasho cilmi baadhista dareenka ciishay ee ah in dadkeena Soomaalida ah 60% aanay waxba akhriyin. ugu dambayn waxaan idinka codsanayaa 1. in aanu garab istaagno hablaheena oo aynu dhiirigelino shaqada weyn ee ay bulshada u hayaan. 2. in aynu ka faa'iideysano mawaadiicda qaaliga ah ee ay inala wadaagto Dr. Sahra kuwaas oo aad ka dheehanayso aqoonta baaxadda weyn ee ku duugan oo aynu ku xidhnaano kanaalkeeda iyo boggeeda Facebook iyo YouTube ee halkan idinka muuqda. 3. inaad ila wadaagtaan inantii buuxiso shuruudda aan xagga sare ku sheegay si aynu ugu soo qaadano barnaamijkeenan idinka oo iigu soo hagaajinaya tiradeeda gaarka ah siba WhatsApp. 4. in aynu diinteenna ilaashanno oo innaga oo aqoonteenna iyo shaqadeennaba wadanna ay kaalinta koobaad mar walba inoo ahaato diinteenna suuban. habluhuna si gaar ah ay qodobkaas u ogaadaan oo ay tusaale nool uga dhigtaan hablaheena haldoorka ah sida Dr. Sahra iyo kuwa la jaadka ah marka laga yimaado dad hore noolaa oo tusaale loo soo qaato. inta aynu ku kulmano muuqaal kale oo xiiso badan. Assalaamu calaykum.